السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقييم قبل كل سؤال هذا الجنال كنا ديرجل نفط هذا فالله ندوم مقالكم كورة سبسكرايب صار الجنال كلا قريب فيديوه وشير قريت أصحاب هذا جعل إنه نوصل بيران ما أنتوا حنو كهذا لنا برنامج ضروري أما كوساب سنولشة وما حي برنامج كاس وحنو كهذا لنا قلالاسيدا أما بروبليميدا كدشة لمعناها إسجعل horta marka ugu horeyso wax walba aad qabanayso waxay u baahan tahay kalsooni haddii aad doonayso maanta inaad wax dhisto ama hawl aad guda gasho marka ugu horeyso wax ugu qaalisan waxa waa inaad noloshaada ku kalsoonaato qofka markuu asiga isku kalsoon yahay oo asiga kalsooni wax walba uu ku qabo inuu qaban karo waad farxad gelin kartaa naf kale marka qof aan nafsadiisa ku kalsoonay marka uu horeyso noloshiisa ma farxad gelin kara iska dhaafay naf kale wadada ugu muhiimsan ama wadada ugu qaalisan oo lagu guulgaari karo waxa waaye runta waa shayga ugu qaalisan ee labada qof ku kulmisa hal wado oo toosan midalan haddii aad maanta doonayso inaad nolol dhisato hadda anaga Soomaalideena 95% beenta aad ayay noogu badan tahay midalan qof baan macnaha nolol u bandhiganayna qof baan macnaha adiga xiriir iyo kalgacayl iyo waxyaabo badan oo sheeganayna so still wadadina lama hayo qofkii marka wuxuu sameeysanaa dhowr godo sameeysanaa marka hore waxa lagu maama god ha qodin haddii aad qodan ha dheereen inaad ku dhacaysid ma ogid marka ninka wuxuu sameeynaa midalan afar ama saddex oo la soconaya midalan midan haddii ay macnaha ku fahmi weyso tan kale u gooso tan iska gooy marka dumarkana dhibaatadaas lug ay ku leeyihiin aniga marka eed masaaray ragga oo idil dumarka oo idil eed masaarayo aniga wixii xaaladda jirto adiga markaas marxaladda jirta ayaan idinla wadaagaya marka gabdha iyo wiilalbo aniga waxaan ku waanin lahay runta waa wadada guusha مثلا هذا ما ترون شكته وحول بحقيقة شكته أقف كسي حقيقة أدوح اسكولا معامشان اسكولا وذاكتان الأولتم واسفهم يسان وضد وقع لسان أتكوغل جاركتان واسلق هذا يسان تاسوا لا شكي مركا وحقوق ميمسن وكالسوني دا حتى عدد اسكو كالسونت هاي قفك آد حريرك اللو ذاك سنة وإنا سيسا كالسوني رجع هذا أما دمر هذا مركا كالسوني ذو الشيء وقع لسان نرش مركا مرحلة دوا ذا وحا واي لو قف مركي أي guri dhaba ay wadaagaan waxa la kulmaa marxalada adag waqtiyaal aad u adag jiro soo waqtiyaashaas waxa la rabaa adkaysi iyo dulqaad waayo waqtiga kuma siinayo farxad asigoo idil farxad kuma siinayo maalin walba farxad kuma siinayo maalin waxa iska jirta aad iska xanaaqsan tahay maalin waxa jirto adiga xaalad ku xun tahay maalin aad iska faraxsan tahay soo qofka aad nolosha la macaamilayso inuu noqdo qof marka adiga murugaysan tahay murugta ka baabi'iya markaad faraxsan tahayna farxad kula qaata soo guri marka la dhisaayo asaaska ayaa laga dhisaa waayo haddii guriga uusan ahayn mid dulqaad iyo karti iyo adeeg in lagu dhiso raalli laga ahayn ama aadan gacmaha isqabsanina soo wax idin hagaagaya habeeraatay ma jirto oo wadada ugu qaalisan dad waxaa jira markii ayaga nolol wadaag ay sameeyaan ee marxaladda ku adkaato dan la kala tago midalan gabadhiya xaaladda ku adkaatay soo wiilkiina ilaa xalkiisa soo idana ma fikirayso isma dhehayso ninka odayga macnaha xaaladda macnaha cidla waa la dareemaa culays waa la dareemaa macnaha bal noloshiina idinka farxad geliya hor u socda macnaha wax walba fikir ay u baahan yihiin haddaad murugaysantaa aad ku dadaasho si isku farxad gelin lahaydeen soo waxba halaabaya ma jiro kala taka badan waxa keeno waa isfaham waaga iyo xaaladda nolosha jirta maanta barnaamijkan waxa uu soo qaatay marxalada badan aan Soomaalideena ku arkay soo kala tageena iyo problemkeena soo aniga nafsadeeda anigu wax u sheegaya tiinan waxbaan u sheegaya marka wixii fikir iyo macluumaad aad noo hayso qaybta comments-ka noogu soo dhaaf barnaamijyada ugu wanaagsan aad jeceshiin inaan ka soo hadalno ama ra'yigeena aan ku cabirno qaybta comments-ka noogu soo share garay ra'yigaadana waa inoo muhiim fadlan muuqaalkan halkan ayuu nagu egyahay waa inoo muuqaalka xiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh